anagoo asteem ahaan waxaa fursad u helnay in maalintiisa labaad shirweynaha Somali Steam aan soo bandhigno projectan la magac baxay Frame Sensor on messaging. Bismillah, magacay waa Mari Cabdiraxmaan Maxamed. Waxaan kamid ahaa ardayda dhigata Hana Technical University. Waxaan ku suganahay Somali Innovation. Waxaan rabaa inaan halkan ku soo bandhigo projecti maadaama aan fursad u helay ana kamid ahay ardayda hore ugu qayb qaadatay Somali STEM. Waxaan rabnaa projecti lagu magacaabo Frame Sensor oo ka hadlayo dabdamis ama oo loo adeegsado in loo isticmaalo dab ama holac. Waxaan lagu adeegsadaa badbaadada automationka iyo mashruucyada Arduino si loo helo digniin degdeg ah marka uu dab dhaco. Bismillah, maanta waxaan soo bandhignaa mashruuc ku saabsan dabdamiska la xiriira. Waxa la dhahaa Frame Sensor baa la dhahaa. Waxyaalaha uu qabtana waxaa kamid ah dabku dareema. Wuxuu ka kooban yahay tan oo la dhaho Arduino, breadboard iyo Frame Sensorka oo ah haddii guriga dab ka dhasho kala wuu dareemayaa ka bacdina wuxuu bixinayaa cod buu bixinayaa. Waxaan rabaa inaan practical isticmaalno alaabta marka hore guriga yaalo dus dab kicin ama meel yaalo wax cod ama bixinayo laakiin markuu uu dareemo wax dab ah wuxuu bixinayaa cod. marka waxaan rabnaa dabkii inaan u isticmaalno baashan la dhaho lighterkan u isticmaalaan rabnaa. marka waxaan sameeynaa oo ku soo dhaweynaa wuxuu bixinayaa u jeedan cod buu bixinayaa taas waxa la mid tahay digniin buu bixinayaa oo leeyahay dab jidha. waxyaalaha kale loo isticmaalo kamid ah meelo badan ba application badan ba loo isticmaalo halkan waxa kamid ah gaaska loo isticmaalaa. waxaa jira bahal haamaha gaaska hadduu gaasku furan yahay oo haamaha gaaska uu qabsado qolka kale gaas uu qabsado uu qaylinayaa wuxuu sheegayaa gaaskaas inuu qolku dhex jiro hadduu dab dhashana uu qaylinayaa. waxyaalaha kale waxaa kamid ah warshadaha loo isticmaalaa qayb ahaan meesha qaybta la dhaho biyaha lagu kululeeyo loo isticmaalaa. waxaa kaloo loo isticmaalaa application waxaa kamid ah switchka loo isticmaalo koronto ma loo isticmaalaa.